مشكلات باودنا دودي كذا شيء مشكلات كاودنا دودي كذا شيء وحي حل وقدقين إن لا ترانسفير قرية ويلاني مشكلة دورنا إن دبد الله صار مشكلة دي ديمين مشكلة دي مجرمين تيدم بيلياشة مشكلة دي بطالة دي شقلانطة مشكلة دي يهودية دو قيتوية دو دي كوشرة انت بحل وحي واركان إن يدبد وصاران حل وحي واركان إن يدبد وصاران دبد وصار كاسي وحكان صدي دبد وصار كاسي وحكان صدي أفكار عصب dhibtii yurub ka jirtay dabadda ha loo raro wixii diinta dhibaato diineed markii ay dhacdo tiro badan loo dagaalo badan dhexdooda ka dhacay waxay u rareen 60 milyan ama 65 milyan saa la sheegayo qaarkood oo yurubiyana ayaa yurub laga raray oo dabadda dunida loo raray 65 ama 60 milyan ee yurubiyanka qaybo diima la isku khilaafay وقيبان وبدن الله رأي نورث أمريكا قيبان مجرمين بهاي وحلو رأي بين أهل أستراليا قيبان واحد عن مجتمع فاشل بهاي وبطالة دكتور بدن تهاي ساوث أفريقيا كو الله رأي ويا قيبان كله دوني ده ورأي دوني ده الله رأي ميان دجنين ما هو واحد قاتل فكرة ده وحيد كل دجنين أي تجيان أي حاقة مثلا الجرمك هو غير النبي بيم كن سقال بقولي أفرتي إلا كن سقال بقولي سيدتي وحاطي قبيل دنا ربر الله يراهدو بقول كي بس سيدتي بودلي قبيل نام الله يراهدو بقول كي بكون تبودلي ده بتنا بوس كودي بلدك تربين دياسي هو أنا وما غلطت سيد الله قال أما أستراليا دتي دكنا جرا سيد الله قال dadkii meelihii uu tagay oo dhan wuu xaaqay ama wuu baabi'iyey hadday tahay Maraykan hadday tahay Canada hadday tahay Australia hadday meelahay baabi'intu u suurtageli weyday waxaa ka mid ah Algeria Francisco wuxuu ku talagalay intuu dago inuu dadka xaaqo laakiin waa u suurtageli weyday meelahay u suurtageli weyday inay dhammeeyaan South Africa ka mid ah apartheid bay u bedeshay meelahay u suurtageli weyday Congo ka mid ah كونغو 20 مليون دادا دغنا 10 مليون بيجلي بالي مسكمل رير قلبات بني ادم كايغا كبخسن waxay u arkayeen aragti badan oo darwinism theory oo social darwinism waxay ku tilmaamaan oo inay dad bahalnimadana ka yimi bini aadam kale aan soo gaadhinay waliyin sida awgeed ما مالين سيروب يا مريكان يعني كتير كتير واحد لا يدعو حدائق الحيوان البشري زو بني آدم ولا دعوة مثلا بلجيم وحي سمي زو جاية كتيرة لا بقولي تدبي اللي حدم كونغا ولا شيء كتيرة أو أضي يسلان يا عروتي يا وحي يبول كودي تلور بسوا دوني دلوقتي سو دعوة تغيو سيد حيوان كلو دعوة waxay bilaabeen 1897 zuuga kii u dambeeyay ama macradkii u dambeeyay waxa la xidhay 1958 dhulka intii kale way isticmaalsadeen waxaan u sharxayaa in qadiyadanu Falastiin iyo Yahuud bay hayeen waxaan uga socdaa Yahuud waxay yiraahdeen reer Yurub aan isdhaafin oo xageeyeen أخيرا فلسطين اللي كانوا ودكي فلسطين دجنانا كوي كلا سيدا يوغلنا يوغلان بيكون تلاقيه مركب حقيقة ما ينتظروا ورميان دولة ده هن النحيين سيداي تهاي وهم هيدو مركان يعهور تاني وحنا الله ينيو يهدنا نك وين في توضع اللي نعتاقي أنا حبيت اللي جوجين حقيقة بني آدم من ما وقتي تاهوري عن كل شيء يا هل كي مرتي أي تدمر مرتي هذا وكمان قد سنيد بني آدم كل ليلي فلسطين وكمان قد سنة كوا أنت كيتش كلو قرر للداونية نيويورك 1905 زائريين با كوتشري يجا يضاير لسكو ضريبة كوتشري زوجة وأنا ير
oo xabad daayarana loo keenay oo dabeetana la wada daawanayo la leeyahay kani waa markii uu daayarnimada soo dhaafay halkuu marayay waa New York reer galbeed aragtida ah dawla qaanuuniya oo xuquuq iyo waajibaad ku salaysan oo qoominimo ku salaysan qoominimo rasmiya wixii aan qoomiyadda ahayn in meesha laga saaraa yuhuudi waxay isweydiisay markaa maxay inoo xal ah waa maxay mowqifkeenu jiitooyinkeenna miyaynu ku mintidnaa mise mujtamacaynu dhex gallaa yahuuddii yurub deganayd 3 qaybood bay u qaybsantay qaybta koowaad waa orthodoxiyiin niman ah waxay yidhaahdeen anagu diintayada bedeli mayno dhaqankayaga bedeli mayno giitooga yurub ku yaalay ee yuhuuddu leedahay qaanuunka dawladdu kama socon jirin rijaaludiinka qaanuunkooda ka socda qaadi iyaga oo rijaaludiinka qaadi ay leeyihiin baa jooga lagama ogola guur madani iyo wixii la mida idaara ahaan qaadigan baa waxa maamula xaqamkan baa maamula marka dawlad yaro dawlad ku dhex nool bay ahayd waxay damceen inay ku mintidaan waase ku adkaatay waxay keensatay in badan la laayo maalin walba meel lagu kaco qayb yuhuudda ka midi waa xaskala fikradda la yidhahdo nimankii qaatay waa liberalis waxay qaateen fikraddii ahayd sidii protestaanka iyo enlightenmentka iyo wixii waa in la Jewish enlightenment baynu ku sheegi karnaa waxay qaateen nusuusta diiniga in la naqdiyo in laga soo baxo niman waaweyn oo wadaadadooda ka mid ahna hogaaminaya fikradda tajdiidka ee in dadka la dhex galaa hogaaminayay oo rag hogaaminaya ka mid ah maalan Musa Mendelssohn ninka la yidhaahdo Musa Mendelssohn taariikhyahanadooda waxay ku tilmaamaan waa muusihii saddexaad bay yidhaahdaan nebi muuse kii koowaad u ah muusa binu maymuunkii dhakhtarka salaaxudiin alayuubi ahaan jiray oo ah wadaadadoodii ugu waaweynaa ayaa waa muusahooda labaad oo isna shaqo badan u qabtay ka saddexaad waa kan muusaha saddexaad bay yidhaahdaan waa nin asliyan belaruusiya meelaha u dhashay laakiin jarmalka iyo meelaha kan yimi fikrad aad dadka hala dhex galo oo aynu ku milanno yurubiyanka buu keenay fikraddaasay aada ugu dadaaleen yuhuudda markaa aqoon-yahankoodii waaweynaa waxay bilaabeen in la yidhaahdo jaamacaadka awal talmuudka iyo wixii ku saabsiisan bay aqoontooda ku subaqday waxay yidhahdeen maya aqoonta maadiga aan dhiganno iskuullada aan galno dadka aan wax la qabsanno dawladda aan ka qayb galno mujtamaca aan ka mid noqonno markaa xaraka ballaadhan oo xaskala la yidhaahdo baa u bilaabantay xaskala literally wisdom bay la macnatay ama education ururkii waa niman udaba ah baa bilaabay nimankaasi waxay wadaan fikrad ah dhaqamadeennii iyo wixeenniina ha la soo nooleeyo dadkana aan dhex gallo aan degno yurub meel laba yaynaan uga bixinay yurubiyan aan noqonno dadka dhex gallo laakiin fikraddaasi aad way u socon weyday in badan oo ka midi filosofadan dambe ee diin la'aanta ka warramiya waxaan oo dhammi yuhuud bay u badan yihiin waa nimankaasi qaatay fikradda cilmaaniga xataa Musa Mendelssohn carruurtiisii yuhuudinimadii uu ku xejin kari waayo way ka kiristaanoobeen qolag saddexaad baa soo baxday oo fikrad saddexaad wada waa fikraddaynu hadda u saxanno markaa inaynu sharaxno waxay yidhaahdeen kumana haysan karna diinteennii meesha yurubiyankana ma dhex geli karno maxaa xala aan hijroonno oo xaggee u hijroonno yurubba waa taa dhul qabsatay aan dhul qabsanno xarakadaasi waa xarakada la yidhahdo sahyuuniyiinta alxaraka sahyuuniya markaa waxay wadaa alxal الثالث xalkii khaqaamada ee ahaa giitada aan ku jirro waa laga yimo waxa la yimid liberalkiina waa la aqbali waaye oo nimanka xarakada tan bilaabi doona in badan oo ka mid waa nimankii fikradda tajdiidka iyo liberalka qaatay oo la soo tufay ay u aqbali kari waaye mujtamacii مثلا ninkan warkiisa idin sheegayay Leon Pensker waa mujtamaca reer bariga Russia iyo Poland iyo meelaha raggii ku koray buu ka mid yahay waa raggii enlightenment-ka qaatay waa raggii lahaa mujtamaca aan dhex gallo 1881kii markii ay dhacday
1871 ilaa 1881 ayaa raashiya iyo yurubta bari yuhuudi joogtay waa la laayay si xun baa loo laayay markaas buu isbedelay oo bilaabay fikradda aan guuro meesha tan ciidanayn ma aqbalaysa isagu markii hore looyarnimo bartay laakiin shaqooyinkan yuhuudda loo ogolayn bay looyarnimadu ka mid ahayd markaasuu iska bedelay markaasuu haddana dhakhtar noqday dhakhtarnimadu sidana iminka u ammaanantay waagii hore uma ammaanayni fooxisadeenoo kale ahaayeen dadka dadaweeye ee meelaha jooga therefore dhakhtarnimu qaata markii loo diiday shaqadii nimanka kan ninkan aan idiin sheegaya wuxuu bilaabay urur lajnatu odisa la yidhahda meeshan iminka ku taalla meeshan russianki ay ku dagaalamayaan iyo maxaa la odhan jiray ukraine meel ka mid ah 4,000 buu isugu keenay meelo gaar uu sameeyey akhiiran iyagiina waa la laayay fikraddaas sahyuuniyadda la yidhaahdaa soo ifbaxday oo ah in dadkan la raro oo loo raro dhulka loo aamino ay degaan yaa taageerayay fikraddan nimankii ay asalba ka timi waxaa jira koox ingiriis u badan oo restoration waxay yidhaahdaan aaminsanaa alistirjaac caqiidat alistirjaac oo caqiido odhanaysa ciise soo degi maayo haddii aan jerusalem inta la qabto yuhuud la geeyo oo heekalkii saddexaad laga dhiso aanay meel yuhuudeed noqonin ciise soo degi maayo marka si ciise aynu u dedejinno ilaahay inuu yimaado iyagu sida sheeganayaan inuu dunida ku soo noqdo oo alfiya thaalita ay u bilaabato kunka sannadood dambe nabadda lagu baari doono dunidu si ay u bilaabato وين جورسلم يهود لدجيا لمن كريستيانو قبل جرا ولبا فكرتها waxa qaatay sida nidaam shabaska yar kala bay tilmaamayaan elite ki wadanka Ingiriis saasi daradeed baynu badan arki doonaa dadka meesha tan u dagaalamaya dajinayay inay elite ki ama nukhba mujtamaca dadkii hogaaminaya Ingiriiska haylayeen qaarna diinaan bay u qaateen qaarna nadariya isticmaariya daradeed bay u qaateen ولذلك رئيس الوزراء هذا جوجا أحمقا بنيامين نتنياهو أو أفرديان United Nations كإسرائيل أفرديان 1985 أي خطبة كآخرية الأمم المتحدة وحلية هي لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل وهذا الحلم يراودنا منذ 2000 عاما تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين بولي حجري بولي كالقعب وين هدانو يهودنا هيان وقبني دولكي إسرائيل لكن رياضة يداسي لابا كنو سندود بانو قبني بولي وحسد اللاعيون نبقى نقاي كريستان كي صهيوني قالوا وبنيامين نتياهو قال يا بولي كريستان كي صهيوني قال هيا نو سورة قليي inaanu xilmigaasi dhab noo noqdo ma yuhuud jacayl bay u samaynayaan kuwani maya waxaa bay rumaysan yihiin kuwaasi la yuhuudda ha la siiyo qudus waxay rumaysan yihiin qudus marka la siiyo ee ciise uu soo dego yuhuudday rumeeyo odhan doonaa dabeetana way beeninayaan 100 iyo waxoogaa 170 140 waxaasaa la sheegaa intaa mooyaane intaasaa rumaynaysa buu leeyahay yuhuudda inta ka soo hadho dhan ciise dili doona bay leeyihiin marka meeshii lagu layn lahaa isugu geynay bay rumaysay naxariis ay waayaan ma aha halka hal isugu geeyay bay qabaan su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay awsaat isticmaariga ahayd ee reer galbeed ee cilmaaniga ahayd siiba reer galbeedda dhammaantii marka la isku wada daro yuhuud xal waxay u arkeen inay iska saaraan